xilli maalinkii shalay ahaa kulankii baarlamaanka maamul goboleedka Puntland uu ku soo dhamaaday is-afgaran waa ayaa gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdisalaan Xasan Xirsi Gujir oo ay weheliyaan odayaal reer Garowe oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta gobolka Nugaal ayaa kicin bulsho ku tilmaamay wixii shalay ka dhacay afuritaanka kalfadhiga baarlamaanka maamul goboleedka Puntland odayaashu waxa ay sheegeen in ay ahay kicin shacab oo amniga lagu khalkhal gelinayo wixii ka dhacay xarunta baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ee magaalada Garowe gudoomiyaha gobolka Nugaal wuxuu si gaar ah uga hadlay xildhibaanada baarlamaanka hortiisa shir jaraa'id ku qabtay markii fadhigu baarlamaanku dhamaaday kuwaas oo sheegay in ay sharciga baalmareen qof sharciga ka sareeyana uusan jirin hadalka gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa dad badan waxa ay u fasirteen hanjabaad uu ugu hanjabayo xildhibaanada baarlamaanka Puntland iyadoo oo madaxweynaha majaraha uu haya maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu maalinkii shalay ahaa xarunta baarlamaanka isaga huleelay kadib markii ay golaha baarlamaanku su'aalo kulkulul ay weydiiyeen madaxweynaha maamulka Puntland ayuu si adag uga carooday su'aalihii ay xildhibaanadu weydiinayeen isaga baxay xarunta baarlamaanka xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan maamul goboleedka Puntland gaar ahaan xarunta magaalada Garowe ee caasimadda u ah maamulkaas ayaa la soo sheegayaa in shirar siyaasadeed oo iska soo horjeeda laba garab oo kala taageersan gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha majaraha haatan u haya Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ay ka socdaan magaalada Garowe iyadoo madaxtooyada maamulka Puntland ay ku eedeysay xildhibaanadan mucaaradka in ay dabada ka riixayaan madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre iyaga oo dhinaca kale kooxaha mucaaradka ah ee baarlamaanka ay beeniyeen in ay haatan cid gadaal ka riixaysa aysan jirin iyada oo ay ku eedeeyeen madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani in uu ku fashilmay toosinta iyo majara u qabashada maamul goboleedka Puntland iyaga oo ku hanjabay in aysan biyo u liqi doonin in ay xilka ka qaadaan Siciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland